barnaamij nabadeed oo si weyn loo soo qaabiyay lagu soo horjeedo filimkii dhawaan lagu aflagaaday nabigeena suuban nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee iyo gumeysiga ka dhanka dalalka islaamka sida Falastiin, Afghanistan, Suuriya iyo wadamo kale muslimiin ah kuwaas oo lagu hayo fargelin cad iyo gumeysi xooganaya maanta waxa uu ka dhacay Greenpoint Stadium ee magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. barnaamijani oo ahaa mid nabadeed oo lagu marayay wadooyinka waaweyn ee magaalada Cape Town ayaa waxaa hareer socday ciidamada ammaanka dalka Koonfur Afrika oo xelayay wadooyinka si looga hortago rabshadaha isla markaana la dhacsanaa qaabka u socday mudaharaadka oo saakas dadii subaxnimo ay isku balansadeen muslimiinta ku nool dalka Koonfur Afrika. barnaamijani ayaa waxaa lagu soo horjeeday dadkii sameeyay filimkii lagu aflagaaday Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee kaasi oo dhawaan lagu baahiyay barta internetka gaar ahaan YouTube-ka ayaa waxaa soo qaban qaabiyay maamulka Islaamiga ee MJC waxaana ka qayb galay muslimiinta ku dhaqan dalka Koonfur Afrika. haddaba barnaamijani waxaa qayb ka ahaa Soomaalida ku dhaqan dalka Koonfur Afrika kuwaas oo daraankooda la wadaagayay dadka Islaamka iyagoo TV-ga caalamiga Universal u sheegay inay aad uga xun yihiin tacadiyada ka dhanka wadamada Islaamka. dareenkayga aad buu u kacsan mana qiyaas karo 100% waxaana ka soo lugay stadiumka Greenpoint waxaana ku imaaday lugays baareedka intaasna ma dareemin waa masaafo orod badan intaasna socodkeeda ma dareemin because of qiiradayda waxaan dareemayaa dareen aad u kacsan waxaan u soo baxay maanta in oo Falastiin iyo Syria meel kasta kulli muslim inay maanta ay xurnimadooda inay qaataan freedom inay qaataan ay maanta ma sha Allah mid la mid ah ayaan leeyahay kaas oo kale walaal shay waan ku maasiinay MJC ay soo qaabisay waxaan ka dhacayaa garoonka Cape Town weyn ayaan ka soo lugaynay waxaan lugar ilaa baarlamaanka ayaan lugaynay waan soo laabanay si fiican oo u dhacay waan ugu mahad celinaynaa dhammaan dadka soo qayb galay walaalaha masaarida ay sidoo kale ka soo qayb galay dhammaan muslimiinta dalka ku nool dhammaan ka soo qayb galay si kastaba ha ahaatee muslimiinta ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa saameyn xooggan ku leh dalka ay ku nool yihiin iyagoo maanta shucuurtooda muujiyay isla markaana la hadlay saxaafadda caalamka oo goobta soo gaartay. Maxamed Muuse Nuur, Deeq Darajo, Universal TV, South Africa.